waddankan dhibta loo soo maray waa la ogyahay. dadkana waa dadkana dad ciyaara madaxdeen inaan garanayn bay la tahay dadka ciyaara anigu waa garanaya dadkayga qiimaha ay leeyihiin. anigu aniga 18 jira ayaa dib looga xukumay. I was 17 years of age. dib baa laga xukumay badheeraale saddexdii October baa madheeraale la geeyey. 24 November ayaa aroon loo soo galay 7 subaxnimo. waxaa loo geliyey kafankii laba la isugu qayaxday. markaa waxaa la geeyey meel markaa aada u madow dhulka bere ku leh. maalintaasi runtii waxay maalin aada iyo aad annaga xaggayga murugo fara badan ay uga muuqato. jawigii meeshuna mar keliya ayuu isbedelay. askartii joogtayna waba laga kaxeeyey. duruucas miidhan baa la keenay. annagoo sidii u tirtiran ayaa waxay gaadhay ilaa 11 maalinimo. maxaabiistana waxaa la yidhi nebigiisi baa duceeyo warka way helaan. deeta ninkii kaadida laga qaadayay ee raashinka loo karin jiray oo maalinta askari daba socday ayuunbaa soo galay meeshii. askarigana wuu ka yara hadhay. ninkan markuu biyaha soo qaadayay ayaa wuxuu la kulmay taaroolihii jeelka iyo ninkii jeelka haystayo intuu ninkii ka soo baxay buu la kulmay. taaroolihiina wuxuu sheegaya su ku yidhi waxaa la afsuuy diyaaradda Soomaaliyeed. deetna waxaa loo soo galay kii baa soo galay. askarigii daba socday markaasina u ka yara hadho diyaaradda Soomaaliyeed baa la afsuuy. waa naga tagmaa waxa la afsuuy yaa la afsuuy taanoo la diyaaradda markaa xabaashooda odale. sidii baanu u tirtirnay waanu xidhnay. habeenkii oo dhan baanu xidhnay. silsiladiina waa la furfurtay. marka dadka la jooganay lagu xidhnay tiir. habeenkii oo dhan baanu sidii u xidhnay. 7 subaxnimo iyo markii xilligii dee la saari lahaa ayaa nin la soo geliyey. ninkiibaa sidii loo soo waday baa nala maqsin yaroo laga soo jeeda la geeyey. ninku markaa wanaanu garanayno aada weyn calbankas baa la yidhaha aduwaan weyn buu hayo. calbankas markaa nin qosol badan mu ahayn laakiin maalintaa aada buu qosolay. wejigiisana farxad fara badan ayaa ka muuqatay. calbankas baanu deetana kunayay waalaan maxaa dhacayo ma baxdi karayna markaa anagu hadalba laga soo baxay. cali war wax laga yaba xagga jabuutina loo qaadee iska diyaargarooba. maxaan diyaargarooba xabaashii baa u qabay. in yar dabadeedna way soo noqdeenoo kafarkii bay naga saareen. waxaa loo geliyeen maxamusihii iyo wixii la soo celiyeen. dalkan waa ta waxaa loo soo maray. waan ku xidhayaa iyo waan ku dilayaa. ninna looga tegi maayo. ninna cadaaladdarro lagu saacidi maayo. waxaa qof walbaaba wuxuu doonayaa. ninna adduunka ma doonayo dowladda Soomaaliya. nin walba wuxuu doonayaa cadaalad buu doonayaa iyo waddankiisa inuu si sharaf loogu noolaado. waddankan ma lihin dee waynu joognaa. cidina idinkuma dhigto. hargeysa marka maanta laygu dhigo ee laygu dhaco yaa dee ma yeerayaada qaadana maayo. waxaan leeyahay markaa waddankuna waa waddankeeni. waddankana ha la ilaaliyo. cadaaladana ha loo dagaalamo. hadalna waxaan leeyahay dee soo dhow dee madheerna waa madheero waxba kaa qaadmayso anagu woodu ka noolahay. kuwa maanta la haystaana dee waxba la yeeli maayo. ya ramaa xaligiisana waanu cambaaraynaynaa. waanu cambaaraynaynaa ramaa xaligiisana. waxaanu leenahay xorriyaddiisa waanu helaa.
waayo waxaan u dhimanay qofku inuu hadlo waxaa loo dhimanaya inuu qofku wuxuu xaq u leeyahay sheego wuxuu qalad u arkayana uu sheego haddii taa lagu xidhayo waa lagu dhiman doonaa aad iyo aad bay mahadsantihiin hadana waxaa leeyahay soo dhawow welcome aad iyo aad bay mahadsantihiin aad iyo aad